السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سلام يا رمان أصحاب تلك نجد أولي سامي البواشوكتان يصير بمقال كيو ومركا إدين سوغاريبا. مقال كان ومقال دبقال investigation أما هدان إلى هذا بحق أرورنا أو كسبسن نكمل عيسى اللي يرادو عبد إفتن سوماليدنا يوتقانو سومالي كابوي. أنا هراي أقسمي دبقال كردوان أما باريتانو لحريرة public information كيسة. haddana aan doonayo mar kale inaan bal dul istaago macluumaadyo la xiriira public information-ka ninkan laga soo aruurin karayo kuwaasoo muujinaya inuu ninkan ka mid yahay dadka Soomaalida loo isticmaalayo oo xogaha beenta ah Soomaalida lagu magac dilayo markaas faafinaya isla markaana iska dhigaya muwaadin Soomaaliyeed oo wadaniya wajigaana Soomaalida u isticmaalaya dhanka kalena shaqo noocaaya markaas wata waxyaalaha aan doonayo inaan muuqaalkan aan uga hadlo oo Cabdi Iftiin ku saabsan ayaa waxa kamid ah isagoo marka la gaf u geysanaya diinta islaamka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya isagoo sheegaya in dadka Minneapolis degan ay dhaqaalasiiyaan ururka Al-Shabaab ayaa kamid ah waxyaalaha aan doonayo inaan muuqaalkan aan kaga hadlo iyo waliba ugu dambeyn kiisnikan ku saabsan oo ah in nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed uu ku shaabadeeyay kuna nabay inuu ka mid yahay dadka lacagaha ka boobay dawladda Mareykanka muddooyinkii hadda la soo dhaafay oo kiiskaas uu ninka dhalinyarada ah ku riixayana asaguna wuxuu ka mid noqon doonaa waxyaalaha aan muuqaalkan idin kula wadaagi doono oo aan cadeymahooda aan markaas soo aruuriyay marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isoo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba waa 6 December 2025 waana markii labaad oo maanta halkan ku kulmayno shirkadda Al-Mustaqbal ee xajka iyo cumradu waxay bishan ku samaysay qiimo dhimis sanadeedkii abid ugu ballaarnaa taas oo ah $200 oo kaliya waxaana lagu soo duubayaa muuqaallo iyadoo soconaysa muddo kooban haddaba walaalaha jecel in looga cumreeyo waalidiintoodii dhimatay waalidka xanuunsanaya iyo cid kasta oo ay jeclaayeen hal la xiriiraan numbarada shaashada ka muuqda haddii aan bilaabo saacadii hadda la soo dhaafay ayaa waxaan baarayay macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan Cabdi Iftiin iyo sida uu qaybta uga yahay mashruucan Soomaalida lagu beegsanayo oo muddooyinkii hadda la soo dhaafay ka socday dalka Mareykanka kadibna waxaan ogaaday in Cabdi Iftiin uu qayb ka yahay dhowr kiis oo Soomaalida si weyn hadda loogu riixayo iyo kuwa muddo hore soo bilowday ilaa haddana saaran shaashadaha laga caayayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka qodobka ugu horeeya waa muuqaalkan hadda aynu arkayno waa podcasting uu Cabdi Iftiin oo uu waraysi ku siinayo mid kamid ah shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta dalka Mareykanka aadna ugu suntan nacaybka cunsuriyadda dadka Soomaalida ah iyo muslimkaba ayuu xusinayaa waraysi isla markaana wuxuu u sheegayaa waxyaalo aad la yaabaysan intaana u dhicinin waxa uu ninkaanu u sheegayo ninka cunsuriga markii aad fiirisaan title-ka ama ciwaanka podcasting-kan ama waraysigan ayaad waxa arkaysaa in ciwaan looga dhigay Cabdi Iftiin oo sharaxaya sida qabiilada Soomaaliyeed ay dhaqaale badan uga boobaan dawladda dalka Mareykanka ayaa ciwaan looga dhigay marka Cabdi wuxuu sharaxayaa sida ay Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed ama qabiilada Soomaaliyeed ay u boobaan dhaqaalaha dawladda Mareykanka ayuu Cabdi sharaxayaa waa ciwaanka podcasting-ka uu ka soo muuqday Cabdi Iftiin marka bal dhowr meelood oo kala duwan ayaan muuqaalkan ka fiirinaynaa qaybta ugu horeysa wuxuu Cabdi Iftiin u sheegayaa inuu Cabdi Iftiin uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku nool inkastoo wuxuu yiri aniga iyo Soomaalidu aan ku kala aragti duwanahay sida ay ahayd inaan u dhaqano markaynu dalkan nimaano marka qaabka ay Soomaalidu u dhaqmayso markay dalkan joogto iyo anigu sida aan u arko waynu ku kala aragti duwanahay laakiin dadka Soomaalida ah ee dalkan degan ayaan ka mid ahay ayuu leeyahay oo maxay ku kala duwan yihiin ayuu haddana u sheegaya waxaan ku irbu yiri aynu dadkan ku dhaxmilano ama aynu la samayno waxa la yiraahdo integration ayaan ku irbu yiri wayna iga diideen buu leeyahay I belong to the community. I come from the community, even though I have my different views on, how we should behave, how we should be. I'm a huge fan of let's integrate. Let's get into America. I mean, because marka laga hadlayo integration-ka dalka Mareykanka waxa laga hadlayaa waa ku dhaxmilan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wax walba in lagu dhaxmilmo ayaan rabaa buu yiri oo u arkaa aragtida saxda ah laakiin aniga iyo Soomaalidu arintaasi waynu ku kala aragti duwanahay uu leeyahay
laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay cabdi iftiin asagu ma yahay nin dadka Mareykanka ah dhaqan ahaan diin ahaan siyaasad ahaan iyo wax walba ayaga ku dhex milan oo Soomaalida ka dhex baxay muu yahay jawaabtu waa maya hadduu cabdi iftiin inta Soomaalida ka dhex baxay oo Mareykanka ku dhex milmay the 24/7 kama usan sheekeeyeen waxa xabar ka jira qarax baa dhacay waxba yeeray dawladda Xasan Sheekh oo waxa uu ka sheekeeyay oo dhan waa Soomaaliya marka integrationku kaama ah ma aqaan integrationku inuu cabdi iftiin uu yaqaano oo kaliya gabadha yar ee cadaanka ah ee uu wato iyo qamrada uu meelaha la taagan yahay laakiin integrationku inta uu ka guda balaaran yahay dadka nimankan ku dhex milmaana xataa Soomaaliga waa iloobaan Soomaalidana ma soo dhaxgalaan qadiyada iyo siyaasadda ay leeyihiin marnaba kaba hadlaan haddii aan sii yaradaayo muuqaalka wuxuu ninkan cadaanka uu leeyahay oo tusaale u soo qaadanaya Ilhaan oo kale wuxuu leeyahay Ilhaan waxay dadka ku tiraahdaa Soomaaliya ayaa waxay noo tahay first ama Soomaaliya ayaa kow inoo ah markii loo fiiriyo Mareykanka dalkan daaga ah ama dalkan madow oo marka Soomaaliya laga wado ayaa first inoo ah ayuu ninka cunsuriga leeyahay asaguna uu ka koobinayo ha buu leeyahay I mean it's the Ilhan Omar Decca Delac we represent Somalia first we represent dark country first as opposed to the American melting pot of we're in America now let's be full-blooded Americans marka cabdi iftiin Soomaaliya u arkaa dal daaka ah oo madow wuxuuna qayb ka yahay dadka Soomaaliya caayaya iyo waliba dadka Ilhaan Umar ku jeedinaya kooxan cunsuriga ah markii la fiiriyo macnaha ay sameynayso hadalkiisa qodobka labaad oo aan doonayo muuqaalka inaan ka soo dhaxbixiyo ayaa waxay tahay cabdi iftiin wuxuu iibinayaa beentii weyneed oo dhawaan ay kooxahan cunsuriga ah ay faafiyeen oo ahayd in dadka Mareykanka degan oo dhan lacagta ay diraan qaasatan Minneapolis iyo Minnesota ee gacanta al-shabaabka ay markaasi ay gasho wuxuuna si caadi ah u leeyahay lacagta halkan laga dirayo dadka diraya waa naqaana laakiin dadka xagga ay gacantooda ku dhacayso yaa yaqaana taasoo macnaheedu ay tahay dabcan waa al-shabaab Definitely. Now the question is, maybe the sender, right? We're all I'm a naturalized US citizen, someone might be a green card, and someone might be an asylum seeker. And asylum seekers can still send money back. But you might have seen the article about Minnesota is the largest taxpayer of Al-Shabaab, terrorist group in Somalia. Yeah, this is the Rufo article right. that I just mentioned. Exactly. That they're controlling the Hawala network or skimming the Hawala network. Yeah. And who's getting the money? Like waa mid kamid ah beenaha waaweyn oo cunsurigu ay gadayaan laakiin dawladda Mareykanku ay ka warqabto xaqiiqadooda laakiin loo isticmaalayo ajenda siyaasadeed tusaale ahaan oo kale aniga Xuseena bil walba lacag baan diraa xamar baan u diraa Kismaayaan u diraa Garbaharri baan u diraa Caabud Waq baan u diraa Nairobi baan u diraa qof kasta oo qaraabadayda ah hadaan caawin karayo waan caawiyaa laakiin dadka lacagta aan u diro al-shabaab jawaabtu waa maya qof walba Minnesota lacagta ka dirayo wuxuu u dirayaa al-shabaab maya dadka ugu badan ee Minnesota lacagta ka diraba deegaamada ay Soomaaliya lacagta u diraanba ma aha deegaamada al-shabaabku ay ka taliyaan sidaa daraadeed wuxuu cabdi iftiin sheegayaa oo ka marqaati kacaya oo uu soo xiganaya oo uu warbaahinta ka sheegaya inay Soomaalida Minnesota degan ay al-shabaabka lacagta u diraan oo qodob kale oo muujinaya inuu asaguna qayb ka yahay beenaha waaweyn ee laga faafinayo warbaahinta Mareykanka waxa sidoo kale jira muuqaal cabdi iftiin oo 4 bilood ka hor isla ninkan uu ku wareystay oo podcasting kala ah oo asagana ciwaan looga dhigay inuu cabdi iftiin uu banaanka keenayo dhagarta iyo qiyaanada iyo tuuganimada dadka Soomaaliyeed ee ka wadaan gobolka Maine waa ciwaan kale oo asaguna ay ka muuqato fal xumayn iyo cunsuriyeyn Soomaalida ka dhan ah oo cabdi iftiin uu markaas qayb ka yahay haddaan muuqaalkan in yar asaguna aan ka soo qaato wuxuu iftiin uu leeyahay Soomaalida dadku waxay u qabaan in Soomaaliya ay wada muslim yihiin laakiin waa run oo waa wada muslim laakiin Soomaaliya waxay ahaan jirtay buu leeyahay muslim suufi ah marka suufiga ayuu fasirayaa wuxuu leeyahay markii Soomaaliya ay maamuleysay buu leeyahay suufiyadu qof walba wuxuu doono ayuu sameyn jiray uu dancing gareyn jiray go around buu sameyn jiray masaajidka in la aadaqa samaysan ahayn I'm saying this because most people see Somalia as a Muslim. That's true. But it used to be a Sufi Muslim, right? Where you could do all kinds of things. You could dance, you could run around. You don't have to go to a mosque. And then by 2006... marka saddexdan eray mid ka hore dancing-ka dadku way garanayaan ma raba inaan
time ku bixiyo laakiin go around ka la yiraahdo waa phrase caan ah markii laga hadlayo luqadda afka Ingiriisiga ee looga hadlo dalkan Mareykanka waliba qaybteeda hadal suuqeedka ah ama slang language ka la yiraahdo fasiraad caan ah ama unique ah ayay leedahay waxaana fasiraadeedu ay tahay waa in qofku uu meeshu doono inta aado ciduu doono uu la sameyn karayo Google Docs ayaa la yiraahdaa go around marka waa hadal markii la isticmaalayo laga hormarinayo qofku wuxuu doono sameyn karaa go around buu sameyn karaa macnaheedu waxa weeye ciduu doono ayuu Google Docs la sameyn karaa mana jirto wax qofka ka xaaraantimisma qaybta kale wuxuu ku leeyahay qofku kumuusan qasbanaynba inuu masaajidka aado inta ugu muusan harin wuxuu leeyahay laakiin 2006 ayaa waxa yimaaday dalka Soomaaliya system kale oo wahaabiya oo dhankaasi Saudi Arabia caan aad oga ah kaasoo ah mid aad iyo aad u adag ama xiran markaysan marka laba diin oo kala duwan ayuu ka dhigayaa suufiyadu qofku waa free wuxuu doonuu sameyn karaa laakiin wahaabiyadu waa diin kale ama nooc kale oo islaamig ah oo ayadu aan waxa ogolayn oo xiran Sacuudigan laga keenay oo Soomaalidu markaasi aysan lahayn ayuu leeyahay wuxuuna intaa ku darayaa in 2006 kooxaha wahaabiyiinta asagu sheegayo ay qarax u geysteen ama ay burburiyeen shalamadii uu ka daawan jiray filimada Mareykanka ah luqadda afka Ingiriiska uu ka baran jiray Mareykankana uu halkaasi uu ka weheshan jiray ama halka uu Mareykanka ka daawan jiray marka filmaanta af Ingiriiska ah ee Mareykanka lagu soo jilay ee luqadan aan ka baran jiray isla markaasna aan halka ka daawan jiray Mareykanka ayay qarxiyeen buu leeyahay kooxaha xunxunka ah ee markaasi wahaabiga ah marka wixii inta ka dambeeyay ayaan Soomaaliya nacay oo Soomaaliya isaga soo tagay maadaama deemel Ingiriisna uusan jirinin shaleemana aysan jirinin meel Mareykan laga daawadana aysan markaa jir buu leeyahay wuxuu qoor salaaxaya oo uu qancinaya oo uu rabaa inuu muujiyo ninka yar hor fadhiya inuu Mareykanka aad u jecel yahay 2006 they bombed the only movie theater in my neighborhood that I was going to see and learn English, right? See American movies. And anyway, so that is when I realized there's only two ways out here. Join them because you have to. There's, you know, not negotiable because you're becoming a man, or out. Leave Somalia as fast as you can. marka hadalkan fasiraadiisu waa hadal diinta meel ka dhacweyn ku ah muujinaya macluumaad been ah isla markaana xataa waxa uu ninkaanu sawirayay ka fog Soomaalida in la caayo oo heer ilaa iyo diinta ay markaas u dhacaysa ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa muuqaalkayga waxaa jira nin dhalinyaro ah oo kamid ah dadka degan gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo magaciisa la yiraahdo Dr. Abdullahi Ali la yiraahdo kana mid aha dadkii ka ganacsanayay gobolkaasi Maine mudooyinkii hadda la soo dhaafay ninka dhalinyarada ah Soomaaliya ayuu aaday Jubbaland buu madaxweyne isku sharaxay markuu is sharaxay ayuu Cabdi Iftiin wuxuu bilaabay inuu warbaahinta iyo TikTok soo fariisto oo uu yiraahdo ninkani xoolo badan ayuu umada ka dhacay waa tuug waa la xiri doonaa fiirsada asagoo adduunka ugu jeclaan lahaa inka dhalinyarada inta la qabto xabsi la galiyo waana xilligii ay sida weyn u kacsanay kiisaska lagu soo oogayay reer Minneapolis dambi weyn waaye oo waliba 25 sano ugu yar xabsi lagu xiri karo hadii lacag NGO ka qabatay u isticmaashid arrimo siyaasadeed waa ku cilna meeshaas waxaan rabaa inaan wax meel ku qorataan lacag NGO ka qabatay siyaasad hadaa u isticmaashid ama campaign ama olole siyaasadeed u isticmaashid ama kursi xildhibaan ama wasiir ama madaxweyne u tirtamaysid lacagti NGO ka qabatay hadaa u isticmaashid dambi weyn ayaa ku jirtaa xariifkan dambigaas ku jira maanta warninku ma doqonnimo ka tahay ma wuxuusan fahansaneen wax ma akhriyo miya se wax jira intaas oga muusan harinin isla ninkii cunsuriga ahaa saaxiibkiisa ahaa ee hadda wareystay labadii podcastin aan idin tusay ayuu macluumaadka inta farta ka saaray ayuu asaguna geeyay warbaahimaha waaweyn ee dalka Mareykanka waana kana asagii oo markaasi ka waramaya xogtii Cabdi Iftiin markaasi la wadaagay Let's introduce you to Somali-American Abdullah Ali, who came to the U.S. from Somalia in 2009. You're looking at, obviously, the man on my right who would
had discovered this story, he became a U.S. citizen, started a nonprofit to help immigrants, started several businesses, including a multi-million-dollar migrant care service agency, and in 2024, he ran for president as he raised money to bankroll a militia in Somalia. Yes, you heard that right. A U.S. citizen who, according to the Main Wire, gave an interview with Kenyan media in which he said he raised money in the U.S. to buy weapons, munitions, and supplies for paramilitary force he had hoped to lead as the president of Jubaland. Yes, that is a real state in Somalia. He was running for president in Somalia. Of course, he lost the election. kadibna waxa cabdi iftiin ku kacay dadkii shacabka ahaa ee deganaa gobolka Maine si weyn ayay shacabkuna uga hor yimaadeen waraaqtan ayay soo saareen dadka gobolkaasi ku dhaqan oo ay ku xambaareen cabdi iftiin oo ay ku sheegayaan inuu ninkaani Soomaalida gobolka degan uu ku hayo suurad xumeyn horay uu muuqaalo uga duubay ardada jaamacadaha dhigata haddana uu been iyo propaganda ka sheegayo nin kamida dadka sharafta leh ee ganacsatada ah ee gobolka ku dhaqan yarka Cabdullaahi la leeyahay ilaa hadda lama xirinin maxkamad ma xukuminin dambigii la sheegayay wuxuu muuqdaa mid propaganda iyo been abuur markaas ku soo dhamaaday cabdi iftiin wuxuu kala kulmay Maine canaan xoog leh markii laga hadlayo culimada masaajidada community leaderska dadka shacabka ah aqoon-yahanada ardayda iyo dad kala duwan oo warbaahimaha ka hadlay kadibna cabdi iftiin wuxuu bilaabay qalqal xoog leh wuxuuna sameeyay in mid kamid dadka saaxiibadiisa uu message u diro uu leeyahay FBI-da ayaan la xiriiray kadibna waxaan ku iri hadii hooyada iyo ciidanada Soomaaliya jirta la dilo oo dhibaato loo geysto waxa mas'uul ka ah Dr. Cabdullaahi ninka la yiraahdo oo markaasi uu nabayay waxaan ka baqayaa inuu ninka marka uu laayo ciidanada maadaama aan xogtiisa la wadaagay buu leeyahay hay'adaha sirdoonka dadkii xogaha uu la wadaagay cabdi iftiin oo ila wadaagay qaar kamid ah xogihii been abuurka ahaa uu diray oo islaha inta suuqa la geliyo yaan lagu soo aadi asagoo laga yaabo inuu dareemay markaasi cabsi ma arkaysaan marka cabdi iftiin waa mid kamid ah dadka Soomaalida ku dhex jira xogahooda ka warqaba siyaasadooda ka warqaba waxay ka sheekayaan ka warqaba dhanka kalena kooxahan cunsuriga ah ee nacaybka Soomaalinimada iyo muslimnimaduba ay ka buuxdo saaxiib kala ah una gudbiya macluumaadka noocayo kala ah hore baan cabdi iftiin uga digay dadka Soomaaliyeed waan ku yiri warninkan iska daaya inta sad muuqaalkan ku soo koobay dib isaga soo laabanayno waxaan idinka tagay sayno adino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh